Muuqaalkeena maanta daawadayaal waxaan ku eegaynaa taariikhda asaasihii dowladda Cusmaaniyiinta. Erdogan bin Suleymaan Shaah. Erdogan waa asaasihii dowladda Cusmaaniyiinta ee caalamka ka talinaysay 600 sano. Wuxuuna ahaa hogaamiye hal adag yaqaanana hadafkiisa. Wuxuuna awood u yeeshay inuu yagleelo jiil dhan oo hogaaminaya adduunka 600 sano. jiil furtay magaalooyin ay ka mid yihiin Istanbul ama Qusdandiiniya, jiil hurdada u diiday gaaladii reer galbeedka, jiil islaam ku soo celiyay heybadiisii. Daawadayaal ku soo dhawaada taariikhda cajiibka ahayd ee Erdogan bin Suleymaan Shaah. Erdogan bin Suleymaan Shaah waxa uu ku dhashay deegaanka Akhlaad ee dalka Turkiga xilli lagu qiyaasayo 1199. Waxa uuna ka dhashay qoys u taliya qabiilkooda Kaylar ee ka mid ah 24 qabiil ee ka kooban yihiin Turkidu. Aabihii Suleymaan Shaah waxa uu ahaa nin hal adag oo habmaamul suuban oo laga dambeeyo. Waxa uuna qabiilkoodu ahaa reer guuraa teendooyinkooda hadba meel ka taagta sidii Turkida wada ahaayeenba. Aabihiina waxa uu dhintay iyagoo ka talaabaya webiga Furaad ee mara Ciraaq. Isaga ayaana noqday sayidka iyo hogaamiyaha qabiilka Kaylar. Xilligaasna waxay da'diisu ahayd 36 jir. waxa uu xiriir xooggan la lahaa suldaankii Salaajiqada ay isku xilliga ahaayeen ee la oran jiray Calaa-u-diinkii koobaad. waxaana loo idmaday amiirka qabaa'ilada ee deegaanka uu qabiilkiisa dejiyay Erdogan oo ahaa xuduudda dowladda Bisanda. Erdogan waxa uu ahaa halyay islaami oo furasho badan. Sanadii 1231 waxa uu ku duulay gobolka Biljika ee dalka Turkiga. waxa uuna qabsaday magaalada Sogod ee aakhirkiina noqotay caasimadii ugu horeysay ee khilaafadii Cusmaaniyadda sanadii 1299. maalin maalmaha ka mid ah waxa uu arkay Erdogan oo sidii caadadiisa ahayd safar ah laba kooxood oo dagaalamaysay. wuxuuna arkay in koox ka mid ah labada kooxood ay xambaarsaneyd calan ama sunnad islaam, waxayna asaga iyo raggiisa ahaayeen kuwo ka daawanaya buur korkeeda. ilaa uu arkay iyada oo labadii kooxood mid ka mid ah laga adkaan rabo, taasoo ka dhigtay Erdogan mid u soo dega saaxadda dagaalka, caawiyana kooxdii la jebin rabay. markii ay arkeen kooxdii kale ciidamadan horta leh ee dagaalka soo gelaya, waxaa ku beermay argagax, waxayna noqdeen kuwo ka carara goobtii dagaalkana ku jaba. markii uu dhammaaday dagaalkuna wuxuu arkay in qofka uu garabka siiyey hogaaminayana ciidanka laga awood badin rabay uu ahaa suldaan Calaa-u-diinkii koobaad, suldaankii Konya ee dowladdii Saljuuqiyiinta. kadib guushan iyo garabkan uu Erdogan siiyey suldaan Calaa-u-diin, wuxuu ku awaarmariyay siinta dhul u gaar ah, wuxuuna ka dhigtay Erdogan iyo raggiisii garabka ugu muhiimsan ee uu ku tiirsanaa. markii uu dagaal galayaba, guul waliba oo ay xaqiijiyaanna wuxuu siin jiray dhul dheeraad ah iyo dahab aad u badan, taasoo sii xoojisay xiriirka saaxiibtinimo ee u dhexeeya suldaan Calaa-u-diin iyo Erdogan. wuxuu Erdogan u dubdhexaad u ahaa dagaaladii ay Saljuuqiyiintu la geli jireen Tataarkii iyo sidoo kaleeto Bisandiiniyiintii. Erdogan waxa uu noqday hogaamiye xuduudeed, wuxuuna mas'uul ka ahaa dhammaan dhulkii dhici jiray xuduuddii ay la lahaayeen Salaajiqada Bisandiiniyiinta. waxaana lagu qiyaasaa tirada qabiilkan uu hogaaminayo Erdogan inay ka koobnaayeen 400 oo teendho iyo 4000 oo qof, rag iyo dumarba. tiradan aadka u yar ayaa awood u yeelatay inay aasaasaan mid ka mid ah dowladihii ugu adkaa ee adduunka. sidoo kalena waxaa ku soo biiray qabaa'ilo ka mid ah Turkumaankii degi jiray deegaanadii u dhowaa, kuwaasoo ku soo biiray kadib markii ay kobceen dhulalkii uu furinayay Erdogan. waxaa kaloo ka mid ahaa dadkii hoos imaanaya maamulkiisa Romaaniyiin haysta diinta Kiristaanka. Erdogan waxa uu ku aaminay oo isaga oo nool uu gacanta ka saaray hogaamintii qabiilka, oo markaan qabiilnimo dhaaftay oo heer dowladnimo ku sii siqaysa. wiilkiisii Cusmaan oo ahaa wiilkii ugu yaraa wiilashiisa, wuxuuna dhintay xilli lagu qiyaaso 1181 isagoo 90 jir ka weyn. Erdogan markii uu dhimanayay waxa uu ka talinayay dhul lagu qiyaaso 4800 kilomitir square, wuxuuna Cismaan sii anba qaaday furashooyinkii ilaa uu qabsado asna dhul lagu qiyaaso 16,000 kilomitir square. 1299kiina uu aasaasay dowlad isaga loogu magac daray ee Cusmaaniyadda. dhanka noloshiisa gaarka ah, Erdogan waxa uu guursaday Xaliima oo ahayd amiirad ka dhalatay qoyska Saljuuqiga ah ee waayahaasi talinayay. khasriidii ay ku nooleedna waxay ka dooratay inay isaga kula noolaato teendho hoosteeda.
waxa ayna u dhashay 3 wiil oo kala ah Gondos, Shafji iyo Cusmaan. Sidoo kalena waxaa la dhashay 3 walaal oo kala ah Sonkortokin, Kondukto iyo Dondar. dhammaantoodna geesinimada iyo dagaalyahanimada way ka sinaayeen, balse go'aan adeega iyo xaq-u-dirirnimada ayuu ka badinayay iyaga. waxay arkeen Erdoğan iyo raggiisa inay sii xoogaysanaysay dowladdii Kiristaanka ahayd ee Bisantiiniyiinta, dowladdii Seljuuqyada ee Islaamka ahaydna ay sii daciifaysay oo marba Tatarka qayb qabsanayay ilaa aakhirkii dumiyeyba. dumitaankii dowladda Seljuuqyadana waxay Erdoğan iyo halyeeyadiisii ay ka dhiseen dowlad kale oo khilaafo weyn noqotay 600 oo qarnina caalamka Islaamka ka talinaysay, waxaana dhisay dowladdaas noqotay khilaafadii Cusmaaniyiinta. wiilkiisii ugu yaraa 3diisa wiil ee Cusmaan bin Erdoğan bin Suleymaan Shah. Erdoğan taariikhdiisa waxaa laga sameeyay filim taxane ah oo loo yaqaano Dirilish Erdoğan. waa filim aad u qiimo badan oo qaab suuban oo anshax suuban ah loo sameeyay. waana filim haddii aad daawato aad wax badan ka faa'iidi doonto. waad ku mahadsan tahay daawashada muuqaalkan. kulanti dambe oo xiiso leh.